وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما تنتهين ما أنت وقال كان وحن ربا إن ندي كل وذاقو دمشدي كديس كهيت سنة تركيا عام كها ترامب صاحب بدأ هاين لينسي جرام وهذا FBI ده بوليس كمجال عاصمة ده هي واشنطن دي سي أي باريان نكن وحلا شيء حلي إنه ودنا حنون كسو بودي ساعة كدبنا وجريودي لكن محيط هاي سببت اللو باريو ninkan maalin ka hor jimcihii waxa uu ka soo laabtay dalka Ukraine oo booqasho sir ah uu ku tagay madaxweynaha Ukraine uu la soo kulmay ma la sumeeyay sidee wax u jiraan Trump wuxuu ka yiri Netanyahu wuxuu ka yirina sidoo kalena waan idin la wadaagaya waxa arintan ay ku soo beegmaysaa xilli senator kale oo Republican ah oo la yiraahdo Mitch McConnell muddo bil ka badan uu isbitaal ku jiro lana sheegayo in uu dhintay iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in uu koma ku jiro Trump markii la weydiiyayna muxuu ka yiri xanuunka senatorkaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya xildhibaan ka tirsan aqalka sanadka ee Congress-ka Mareykanka oo dad shacab ah oo Israa'iiliyiin ah oo hubeysan ay saacad ka badan qori ku hayeen daanta galbeed ayaan sidoo kalena idin la wadaagaya markii ciidamada militariga ee wadanka Israa'iil ay u yimaadeen sidoo kalena mayay la safteen xildhibaankaasi dadka shacabka hubeysan Israa'iiliyiinta oo haysto markii ay ugu yimaadeen isaga oo warbaahinta la hadlay arintaasina ka hadlay ayaan sidoo kale idin la wadaagaya Iran markii Hormuzley waxay sheegtay ilaa amar dambe inay xirtay Mareykanku si ba'an ayuu u duqeeyay Iran sidoo kalena wadamadii qaliishku ay duqeynaysay ayay ballaarisay arintaasina waan idin la wadaagaya bal sanadkii 2002 ku jiray Congress-ka Mareykanka gaar ahaan aqalka sanadka 24 sano ku dhawaad November-na la filayay doorasho inuu galo ayaa si lama filaana la sheegay xalay in gurigiisa ambulance loogu wacay 911 kana waxa la sheegayay in qof da'diisu 70 sano ay ka sareyso uu wadna xanuun uu ku soo booday haddaba senatorkan waxaa booskiisa muddada doorashada ka dhiman oo ku dhawaad 4 bilood wax ka yar ah magacaabi doona gudoomiyaha gobolka South Carolina laakiin FBI-da ayaa hadda waxay soo faragelisay dhimashada Lindsey Graham senatorkan jimcihii ayuu ka soo laabtay wadanka Ukraine oo booqasho sir ah uu ku tagay madaxweynaha wadankaasi Volodymyr Zelensky ayuu la kulmay oo waliba hadiyadan uu guddoonsiiyay sidoo kale waxa uu booqday goob droniska lagu sameeyo ee wadankaasi Ukraine markii uu ka soo tagay kadibna Ruushka ayaa goobtii duqeeyay isla markaana burburiyay senatorkan waxa uu caan ku ahaa inuu saaxiib dhow la ahaa Donald Trump walow dhowr jeer ay isku dhaceen laakiin markii dambana haddana ay ka heshiyeen waxana uu aad ugu doodayay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka dagaal aysan qayb ka ahayn gaar ahaan waxa uu aad uga hadlayay dagaalka Iran iyo midka Ruushka iyo Ukraine in Mareykankuna uu ku lug lahaado colaadaha wadanka dibadiisa aad ayuu ugu ololinay walow Trump uu ku taageersanaa dagaalka Iran laakiin midka Ukraine ayuu aad uga soo horjeeday marka waxa la leeyahay 911 ka markii la wacay xalay gurigiisa caasimadda DC ku yaala 2 saac iyo bar habeenimo ayaa waxay isku dayeen kooxaha gurmadka degdega ah in ay xabadka ama CPR ay siiyaan markaas kadibna isbitaal ayaa la geeyay xalay ayaana labadii saqda dhexe ama 8 saac habeenimo qoyskiisa waxay xaqiijiyeen in Lindsey Graham oo 71 jir ah uu geeriyooday isla markaana sidoo kalena ilaa ay hadda lama sheegin xaaladda rasmiga uu u geeriyooday laakiin waxa ay sheegeen in uu ahaa xanuun degdeg ah si kedis ah oo degdeg ahna uu ku geeriyooday marka hadda taliyaha FBI-da Kash Patel waxa uu sheegay booliska caasimadda DC inay ku caawinayaan wax kasta oo awoodooda ah si loo ogaado dhimashada Lindsey Graham mid caadi ay ahayd mise waa la sumeeyay oo waa la dilay waxaan ognahay Ruushka inuu caan ku yahay sun qatar ah oo qofka aan hadii inta la salaamo maalmo kadib uu u geeriyoonayo inta badan dadka iyaga ka soo horjeeda oo wadamada kale ama mucaaradkooda ay u adeegsadaan marka Lindsey Grahamna Ukraine ayuu aad ugu taageerayay dagaalkan isla markaana sidoo kalena hadda waxaa laga cabsi qabaa in arintaasi ay jirto oo baaritaan ayaa lagu hayaa madaxweyne Trump ayaa bartiisa Truth Social-ka waxa uu ku soo qoray inuu geeriyooday mid ka mid ah dadka uu yaqiinay isla markaana senatarada ugu wanaagsan aqalka sanadka ahaa waxana uu sheegay inuu mar kastaba
uu u shaqaynayay dadka Maraykanka islamarkaana uu ahaa wadani dhab ah waxaana uu xaqiijiyey in booskii uu baneeyey uu noqon doono mid bannaan oo aan la buuxin karin sidoo kale Netanyahu ayaa isaguna ka hadlay waxa uu yiri waxaan lumiyey saaxiib qaali ah islamarkaana sidoo kalena saaxiib Israa'iil ay lahayd oo aad loo jeclaa waxa uu sheegay ma jirin saaxiib ka wanaagsan Lindsey Graham oo aan lahaa waxaana uu sheegay in uu rumaysnaa in ammaanka Maraykanka iyo midka Israa'iil uu isku xiran yahay oo aan la kala qaadi karin waxaana naftiisa oo idil u hibeeyay difaacidda Maraykanka iyo sidoo kalena in Maraykanku waxa uu lumiyay ayuu yiri wadani dhab ah islamarkaana aniguna waxaan lumiyay saaxiib dhab ah ayuu yiri Netanyahu oo isaguna geerida Lindsey Graham ka hadlayay marka hadda baaritaan ayaa socda waxaa loo malaynayaa in la sumeeyay senatarkan Lindsey Graham oo xalay sikadiisa ku geeriyooday markii dalka Ukraine uu ka soo laabtay kolley haddii wadna xanuun ay caadi ah ninkana waa uu caafimaad qabay wax xanuun ah laguma ogeyn waxaana hadda baaritaankaasi la ogaanayaa in arrintan wadna xanuun kusoo booday ay ahayd iyo sidoo kale in ay jiraan arrimo kale oo booqashadiisii dalka Ukraine intii uu joogay ma la sumeeyay sidee wax u jireen arrintaasi ayaa hadda baaritaan lagu haya arrintan waxay ku soo beegmaysaa sidoo kale xilli senatarka caanka ah ee Mitch McConnell oo Kentucky laga soo doorto oo ilaa iyo sanadkii 1985 ku jiray aqalka sanadka 41 sano isla markaana 84 jir ah uu isbitaal ku jiro ilaa iyo 14 bishii hore ee June waxa la leeyahay inta badan warbaahinadu maalmahan aad ay uga hadlayeen senatarkan waa uu geeriyooday kuwa kalena waxa ay leeyihiin koma ayuu ku jiraa walow xildhibaano kala duwan ay yiraahdeen inaga ayaa la hadalnay oo waa uu hadli karaa oo waa caafimaad qaba laakiin inta badan warbaahinadu waxa ay leeyihiin ninkan sababta xaaladiisa caafimaad iyo sababta isbitaalka loo dhigay senatarkan aan loo sheegaynin maxay tahay sidoo kalena gobolka laga soo doorto ee Kentucky gudoomiyaha gobolkaasi Andy Bashir waraaq ayuu u diray uu leeyahay senator Mitch McConnell waxaan ka rabaa inaad ila wadaagto xaaladada caafimaad sida ay tahay ilaa haddana loogama soo jawaabin marka madaxweyne Trump ayaa arbacadii la weydiiyey waxa uu ka ogyahay xanuunka Mitch McConnell markaasuu wuxuu yiri waxba kama ogi ninkaasi xaaladiisa marka arrintaasina xaaladda ayay sii xumaysay marka senatarkan kale oo isagu November ba xilka ka degaya waa Mitch McConnell isla markaana Trump xubin oo taageeray kursigiisa ay u tartamayso maadaama uu horey u sheegay inuusan tartami doonin ayaa isagana hadda aan la ogeyn in uu nool yahay iyo in uu geeriyooday oo bil ku dhawaad isbitaal ku jira sababta isbitaalka loo dhigay iyo xaaladiisa caafimaad sida ay tahayna aan laga warhaynin wax sawir ah wax muuqaal ah isagoo isbitaalka yaalana aan la arkin arrintaasina haddii halkaasi aan ka gudbo arrintan la yaab kale waxay tahay xildhibaan ka tirsan aqalka sanadka ee Congress-ka Maraykanka oo dimuqraadi ah oo California laga soo doorto oo la yiraahdo Ro Khanna ayaa waxa uu aaday booqasho ku aaday Israa'iil toddobaadkan marka waxa uu doonayay bal daanta galbeed inuu tago iyo sida dadka hubaysan ee shacabka ah ee Israa'iiliyiinta dhibaatada ay ku hayaan dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta shacabka iska leh inuu indhihiisa ku soo arko marka magaalada Sanuna isagoo kolonyadii gawaarida oo watay ay sii galayaan ayaa waxa istaajiyay dad shacab Israa'iiliyiin ah oo hubaysan oo qoryo uu ku sheegay in ay yihiin M4 ku hubaysan way istaajiyeen waxayna yiraahdeen ma gudbaysid wuxuu yiri xildhibaan ayaa ahay Congress-ka ka tirsan aqalka sanadka warinagu waxaas ma qorna ayay yiraahdeen waxa uu la xiriiray safaaradda Maraykanka ku leeyahay Qudus isla markaana waxa uu sheegay in safaaraddii ay ka soo baxday laakiin ciidamadii militariga ay soo hormareen oo Israa'iil IDF-ta waxaana sheegay ciidamada Israa'iil in ay la safteenba shacabkii hubaysnaa ee Israa'iiliyiinta ahaa waxa uu yiri waa inagu qoslayeen gawaarida aan wadano taageeradooda ayay lugta la dhacayeen qoryahooda ayay sidoo kale mararka qaar nagu soo fooraarinayeen arrintaasina waxa uu ku tilmaamay in ay tahay mid aan la qaadan karin in xubin ka tirsan Congress-ka Maraykanka iyo waliba dad kale oo mas'uuliyiin kale oo la socoto iyaguna baasaboorka Maraykanka wato in sidaas loola dhaqmo waxa uu yiri waxa ay tahay mid sharci darro ah waxuna ka dalbaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu in arrintaasi baaritaan uu ku sameeyo waxana uu sheegay in loo baahan yahay in lala xisaabtamo ciidamada Israa'iiliyiinta oo afar uu ku oo dhibaatadaasi sameeyay bal waa kan isagoo maanta arrintaasi uga hadlayay barnaamijka la yiraahdo
Mida Press oo ka baxa telefishinka NBC isla markaana gabadha Kristen Welker ay daadihiso waxa uu yiri 75 daqiiqo waa 1 saac iyo 15 daqiiqo ayayna haysteen ayuu yiri dadkaasi hubaysan ee Israa'iiliyiinta waxaan ognahay Israa'iiliyiinta hubaysan in ay iska dilaan guryahooda ay gubaan xoolahoodana ay qaataan dhulka ay haystaan shacabka iska leh ee Falastiiniyiinta marka wuxuu yiri arrintaas ayaan rabay inaan soo arko laakiin arrintii aniga ayayba igu dhacday bal waa kan isagoo ka hadlay. The IDF is lying. What happened was unprecedented. They had violent settlers detain American citizens, including an American government official. You had these settlers brandishing M4s, kicking the tires of our van, laughing at us, mocking at us, videotaping us. We were detained for about 20 minutes, fearful of our lives. Then the IDF comes, 4 soldiers. They tell our translator that they're on the side of the settlers. They further detain us and block us in. We had to call the American embassy. Fortunately, David Brownstein helped and he got to someone in Israel. And 75 minutes after the detention by the IDF soldiers and by these settlers, we were let through. Now, I heard the Prime Minister, and he says that Israel is a country of law and order. Well, let me be very specific. The Prime Minister needs to open an investigation on these violent settlers who are connected to Yanon Levy, who has destroyed Zanuta's village and is a known person who has killed Palestinians, and these settlers were connected to him. They need to be prosecuted, including Yanon Levy. Their outpost needs to be investigated, and he needs to have an investigation on these 4 IDF officers. Security cameras can see that they were involved in the detention of American citizens. How dare they mistreat people with an American passport that way? ugu dambeyntiina waxaa sii xoogaystay dagaalka Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeya. Iiraan shalay galinkii dambe waxay xaqiijisay in marinka Hormuz ay si ku meel gaar ah u xirtay kadib markii maraakiib ay bilaabeen in ay maraan meel aysan Iiraan ugu talagalin inay maraakiibtaasi ay maraan. Mareykanku xalay 140 bartilmaameed oo militariga Iiraan ay leeyihiin ayuu duqeeyay waxaana kamid ah goobaha droniska iyo gantaalada ay Iiraan ay ku kaydsadaan waxa kamid ah sidoo kale goobaha hubku u yaalo goobaha iskaarsiinta iyo dhinaca xeebaha meelaha maraakiibta dhaqdhaqaaqooda ay kala socdaan. Wasiirka gaashaandhigga ee wadanka Mareykanka Pete Hegseth waxa uu yiri Iiraan qalad ayay sameysay qaladkiina hadda waa ay ka jawaabaysaa laakiin Iiraan iyaduna waxay ballaarisay duqeymaha ay ku hayso wadamada khaliijka iyadoo markii hore ay duqeynaysay Bahrain iyo Kuwait oo kaliya laakiin hadda Imaaraadka, Urdun, Bahrain iyo Qatar ayay sidoo kale ay ku soo kordhiyeen oo duqeyn ba'an ay la beegsanayaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay wadamadaasi khaliijka marka waxa muuqata in hadda dagaalkii uu cirka isku sii shareerayo Mareykanka iyo waliba Iiraan u dhaxeeyay isla markaana sidoo kalena hadda sida muuqatana shidaalkii markale cirkaasi ayuu sii galaya aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono